يا سمين دونه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maanta waxaan filayaa halkan aynu isugu nimi waa munaasabad aynu ku xusayno 56 guuradii kasoo wareegtay maalintii dalka Somaliland uu ka qaatay xornimadiisa dalka Ingiriiska 1960 Juun. haddaba sidai caadadu ahaan jirtay barnaamijkeena inaga oo u gudubgeli doonaa waxaan marka hore sidii caadada ahayd waxaan noogu furayaa aayadda qur-aanka kariimka waxaana inoo akhriya aniga oo ah mustiiq farax acuudu billahi min ashaytaani rajiim bismi illaahi raxmaani raxiim أفحسبت أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إليها آخر الأبرهان له به فإنما حسابهم عند ربهم إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. آيات القرآن الكريم كإلهي نوافعه وحنفنا يا مانت ومالين من أي تهاي إنجليز وسوماليلاند وكويسان لكن سوماليلاند إنجليز كيدا كويسان. haddaba waxaan barnaamijkeena aynu ku furaynaa oo halkan ku sugan madax fara badan aqoon-yahano niman odayaala saraabiin oqaal intaba gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee dalka Norway Axmed Soleman Jaamac. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمان مرتي شرفتك الصوت بالشيء أما سالية رير نوروي بشوية السمال رير نوروي كالصوت بالشيء مناسبة دنا إن سينو كنت صنع بلدي مدح بناني السمال لان كلويتي dalkii la oran jiray Ingiriiska ama dalka la yiraahdo Ingiriiska taariikhdu markay ahayd 26kii bishii 6 Juun 1960kii oo ay ka soo wareegtay waqti gaaraysa 56 sano maanta ka joogno farxad weyn bay noo tahay jaaliyad ahaan inaanu maalmaha qaranka ku qaaliga ah inaanu munaasabad noocan oo kale ah idiin soo diyaarino annagoo kaashanayna bulshooyinka reer Somaliland ee ku sugan dalka Norway iyo safiirkayaga safiirka Somaliland u fadhiya dalka Norway mudane Sulab Warsame oo isaguna inala jooga maalintani qiimaha inoogu fadhido qaran ahaan iyo shacab ahaanba lama soo koobi karo lagamana warrami karo waxaynu halkan uga ducaynaynaa maadaama ay bil barakaysan tahay oo tobankii ugu dambeeyay bisha Ramadaan ay tahay dadkii u soo halgamay maal iyo nafba maaragtay u hormariyay si aynu u helno nabadgelyadan iyo dalka ballaaran maanta Somaliland la yiraahdo nabadda iyo horumarka iyo kala dambeyntu ka jirto marka salaan diiran baan u dirayaa shacabweynaha reer Somaliland meel kasta ay joogaan dad iyo gudahaba waxaan leeyahay farxad ku ciida ilaahayna waxaynu u baryaynaa dadkii u halgamay dalkan inuu naxariistiisa ku ballaariyo intaasaan hadalkayga ku kooban yahay ciid wanaagsan oo aad iyo aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha jaaliyadda reer Somaliland Axmed Soleman. waxaa halkan isaguna ku sugan oo maanta ka madaxweynaha baan malaynayaa oo Sulub Xuseen Warsame safiirka Somaliland u fadhiya dalka Norway kusoo dhawow safiir munaasabadan maalintan farxadda leh 56 guuradii kasoo wareegtay maalintii qaranimada Somaliland ay ka qaadatay dalka Ingiriiska. kusoo dhawaanaya. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتي. maalinta maanta ay ku aadan tahay 26 June oo runtii maalin barakaysan oo ah maalin Ramadaan ah
sida aynu ognahay wadanadan aynu degannahay ee North Europe muddo dheer la soomo bay saacadda afurkuna uu ku beegan yahay 11 oo Ramadan waqti aad u dheer muddo 2 saacadood aan soono ayay kusoo beegmatay maalintii 26 June ama maalintii aan xorriyadda ka qaadanay ahmiyadda Ingiriiska 1960-kii. xuskan aan xusayno maanta runtii waxaanu xusaynaa inaanu maalintaa aanu xasuusanno oonu kor u qaadno. waa maalin qaalina u ah in muddo laga joogo 27 sannadood ay ahmiyaddii ingiriisku ay fadhiyeen dhulkeenna oo ay protectorate bay iyagu runtii ahaayeen, colony may ahayn. laakiin odayaashii inaga horreeyey ama waqtigaa ku beegnaa ayaa ka mida dhaliyey oo inoo keenay xorriyadda. hase ahaatee muddo yar oo gaaban kadib waana kii ula kacday unionkii ama isku darsanay waddankii la odhan jiray Soomaaliya. kadibna wixii dhacay dee waa la wada joogay dhalinyarta iminka badan ee nool markhaati bay ka yihiin. la soo noqonay oo si kasta ha u dhacdee la soo noqonay xorriyaddeenii aan waqtigaa luminay 18 May baanu la soo noqonay 1991. maanta waxaa laga joogaa ilaa intaan la soo noqonay 25 sannadood oo aan ugu qarni oon iyaduna aan qudheeda u dabaaldegnay bishii iminka muddo bil laga joogo 18 May. haddaba in aanu xusno maalmaha taariikhda leh ee aanu leenahay ayaa aad iyo aad u muhiima, waayo waa jiritaankeena wey. waxaynu ognahay inaanu nahay waddanadii ugu horreeyey Afrika waqtigii xorriyadda la qaatay ee farakutiriska ahay baanu ka mid ahay 60-kii. Soomaali waxaa la idhaahdaa malaha waa calankii ugu horreeyey, malaha ma ahe waa siday tahay waa calankii ugu horreeyey laga taagay bay ahayd Somaliland. sidaa awgeed in aanu maalintaa aanu xusnoon kor u qaadno oo waajib ina wada saaran. waxaana laynaga doonayaa inaanu malaha maalintaa barakaysan waxay kusoo beegay. sidaa awgeed dee wax badan ma qaban karayno, waayo waa dadka badankooda way sooman yihiin. laakiin taagteenna inakoo sooman inu haddana aanu xusno maalintaanu diiradda saarno, waayo waxay ka turjumaysaa jiritaanka qofka. noo horseedi kartaa in aan waxaanu higsanayno ama aanu doonayno ictiraafka inoo fududayso. sababta ugu weyn aanu ictiraafka u doonayno waynu haysanaa oo waatan 26 June ayaa sabab u weyn u ah. waddan ka mid caalamka ayaanu ahayn waqtigaa. taa qudheedu waa sabab. waxaanan hubaa oo kale in niyaddii iyo waxyaabihiina soo maray awgeed uu qof kasta ahmiyad u leeyahay inuu uu dhadhansado in waddankaa dib loo aqoonsado. niyaddaasina way jirtaa. awooddiina waanu leenahay. awooddii waanu muujinay. waxaanu ku muujinay geeska Africa dimuqraadiyadda ka hilaacday in ay Somaliland ay ka tahay. ninka wariyaha madaxweynaha wuxuu doona u weydiin karaa lama la xidho, waxay doonaan bay sameeyaan. wariyuhu waxa dhibaata oo la kulma allow may ahaato Kenya iyo waddanada kale nagu xeeran. ninka muxuu ahaayey wariyihii markuu su-aal weydiinayo qofka xukuumadda fadhiya waxyaabaha uu la kulmo waynu wada garanaynaa. marka dimuqraadiyadda hanaan qaadee heerkaa gaadhay ayaa sabab u ah
inagu filan in aanu aqoonsi adduunyada aanu weydiisano hadalka waxba dheerayn maayo kulliba halkan waxaa fadhiya aqoon-yahan iyo siyaasiyiin iyo oo runtii badankooduna malaha waktiga 26 June goorjoog ahaa ayaan hadalka u hambaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. inagoo ku guda jirna barnaamijkeeni waqtigii afroduna uu dhow yahay kolley waxaan filayaa Ramadaan mubaarak